runtii maanta waa fursad ama munaasabad qaali ah oo aan kaga qayb galayno inaan dhiiri gelino ardaydii kaalmaha sarsare ka gashay iyo dhammaan ardaydii ka faa'iideysatay madrasada Axmed ibn Hanbal fajazaahumullahu khayral jazaa macallimiintii imaamulkii guud ahaan ku soo tabcay juhdi badan geliyay ardaydan quruxda badan maanta inaan hor fadhino oo isugu jira wiilal iyo gabdho fajazaahumullahu khayral jazaa fi miisaani xasanaatihim intaasaan leenahay sidoo kale waalidiintan aad iyo aad u mahadsan yihiin ilaahay miisaankooda xasanaadka u saaro juhdigan tirada badan ay geliyeen in ilmahan maanta ma sha Allah ay ka mid noqon doonaan ama ay sabab u noqon doonaan inay noqdaan shaabun nashaa fi cibaadatillah waa dad dhalinyaro ah oo ku barbaaraya ku dhexnoolaanaya cibaadada ilaahay iyo barashada diinta islaamka marka dhammaan waxaan leeyahay waalidiinta juhdigan aad geliseen ilaahay ajriina ka siiyo dhammaan macallimiinta imaamulka haddana wali waxaan ku sii darayaa in juhdigan la sii laabo maanta waxaan ku noolnahay duni xaaladeeda khatar aad ugu jirto baraha bulshada iyo waxyaabo badan oo ilmaha duufsada ama dhalinyarta maanta khatar ku ah maadaama ay jiraan inaan juhdi badan aan gelino in ubadkeennii iyo dhallinyaradeenii ay ka mid noqdaan dadkaas lagu tarbiyeynayo lagu taclimayo dhammaan diinta islaamka iyo qur-aankii taxfiidkiisii iyo tafsiirkiisii iyo culumtii sharciga ahayd فجزاكم الله خير الجزاء dad badan iga dambeeya inaan ku sii dheeraad mar rabo kelmadda aan ku soo gabagabeynaa waxa weeyaan man salaka bihi tariiqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariiqan ila aljanna qofkii wada mara asagoo cilmi raadinaya waalidkii lacag uu bixinaya juhdi buu gelinaya macallimiintii maamulkii isku xiraya ardaydii yaryar buu ku dadaalaya qaabkii wax u baran lahaayeen intaas oo dhan waxa lagu gaaraya janna lagu heliya marka walaalayaal aan iskaashano aan ku dadaalno ubadkeena say u noqon lahaayeen ubad ku barbaara diinta islaamka si hadhowdii waalidka uu u noqdo waalid taajkaas loo xirayo ilmahaas diinta bartay kitaabka ilaahay xifdiyey tafsiirkii bartay ku dhaqmay hadhowdiina markay dhintaan kadib noqda kuwa yiraahdo waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira aniga waxa la igu yeeray inaan ka warbixiyo ardadaas waxbarashadoodii iyo qaabka wax barteen iyo ugu horeyn horta madrasada Axmed ibn Hanbal waa masaajid iyo madraso isku jira masaajid iyo madraso wada socda dhowr qaybood bay ka kooban tahay qaybta quraanka oo culumta quraanka lagu baranayo iyo hingaadi iyo farbarkii iyo qayb xifdiya oo gaar oo la socota qaybta quraanka kamid ah waxa kale oo jirta qayb habeenkii oo dumarku ay dhigtaan iyaguna way jirtaa waxa kale oo jirta qayb xalaqo oo khamiista iyo jimcada ka gaar ah iyaduna way jirtaa dhowrka qaybood bay madrasadu ka kooban tahay si guud ahaaneed si gaar ah waxaan u soo daadagayaa xafladuna wax ay daaran tahay oo ah xalaqada khamiista iyo jimcada ardada dhigata xalaqada khamiista iyo jimcada si guud wax weeye 58 arday 58 arday 16 kamida waa gabdho 42 kamidana waa wiilal waxa ay bartaan kutubta yaryar ee mutuunta ah funuunta kala duwan waqti ay bartaanna waa waqti kooban oo aan la dareemi karin iyagoo waxbarashadoodii kala wata iskoolkoodii dhiganaya barayfada qaybtood dhigtaan qaybtood muraajacooyin aadaan oo fasalada isdareyska galaya ah haddana kutubtoodii bay bartaan waxay bartaan khamiista iyo jimcada waa laba maalmood oo ardaygu fasax heli lahaa ardada yaryar oo quruxda badan haddii aysan labada bari wax barteen maanta saa inooma soo horfariisteen dhammaan marti sharaftaas iyo waalidka iyo martada ka soo qayb gashayna suuma timaadeen asaagood labada bari markay iyagu ay dadaalayeen wax baranayeen ardada la ayniga ahayd waxay ku mashquulsanayeen kubad ilmahaasi kubad buu ku mashquulsanayo ciyaaray ilmihii kale oo la daadahaana kitaab buu baranayay marka la kala dheeray orodna maaha alxamdulillahi alladhi qad wahaba عباده المقربين الأدبا ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق وبعد وجاء أحسن الأخلاق يرقى بها صحيبها المراقي فأول الراعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل الرجاء وتوحيد ومن خاف النجاح وقر نبيه وعظم سنته قدم
على كل الورى محبته بجل كبيرا وارحم صغيرا وساعد الضعيف والفقير وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفاطنا حليما ودانة وحياء وارفقي وكن أمينا وتواضع واصدقي تحلى بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان سن اللسان واحفظ الجوارح أحب كل مسلم كن ناصحا ما شاء الله ما شاء الله إلهي وبدك يرها بركيه إلهي وددا توصن حق السوق إلهي وحو ليا أبو النبي عليه الصلاة والسلام نندل يراه ليس له صبوة عن لحلح لهين لحلح يرانتو كبلوضا الموضوع يران لحلحه مركو وينادنا ولا لحلحنا يدي لكن يرانتو وتوصنا إن شاء الله مركو وينادنا إلهي توسيو magacay waa Suur Maxamuud Axmed waxa kamid ah ardayda dhigata xalaqada dugsiga Axmed bin Hanbal alhamdulillahi alladhi qad wahaba ibadahu almuqarrabin aladaba thumma salatu bisalam tartaqi ala nabiyyina azimul khuluqi wa ba'daha ka ahsan al-akhlaqi yarqa waxaan kamid ah ardayda dhigata madrasada Axmed bin Hanbal waxaan bilaabaynaa kitaabka la dhaho manduumatul talqinatil aqida lil atfal alhamdulillahi azim shani بكل نعمة ورباني ثم الصلاة والسلام أبدا على نبي الهاشمي أحمد فهذه منظومة المفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة كي يحفظ العلوم حال الصغار فإنه كالنقش فوق الحجر أرجو لها القبول بين الناس تكون في التوحيد كالأساس فمصدر العقيدة الصحيحة الآية والرسول خذ نصيحة بفهمهم أصحاب القرون الأولى من حاد عن أفعالهم مقبولا وأول السؤال عما ربي دائرة تمرك لغو تربية خير يا هناك خيرك يا هناك بيسود دينيا لكن هذه لغو تربية وحيالك له iyo arrimo kale lagu tarbiyeeyo wixii bay keenayaan laana maxaa yeelay wax walba ama shay kasta ay waxa ku duwan oo ku hoos jira soo bitaaca kullu inaa bima fihi yandax bali shay walba waxa ku jira hadii isbuunyo ama joorariga inta qayb ka soo geeysa caana dhex dhigtid waa tuujisid caanihi ba ka helaysa hadii aad maxaan ku dhaabiye dhex dhigtidna waa tuujisidna biyihii baa soo deynaya saas oo kale way daa'irtu marka khayr iyo wanaag hada ku tarbiyeysidna khayrkii way soo deynaya xumaan iyo shar iyo qurun iyo baqti iyo xaraan hada ku tarbiyeysidna wixii bay soo deynayaan marka tarbiyaduna waa shaqo adag runtii waa amal shaaq ah waa shaqo adag way tarbiyadu una baahan juhdi iyo waqti in la geliyo iskama soo baxo qof laakiin wuxuu u baahan yahay juhdi inaad gelisid waqti inaad gelisid oo hortid maal iyo xoolo iyo aqal iyo maskax mid inta baa geysid maxay ayada ruuxeeda kala duwan oo tarbiya iimaaniya waxa la yiraahdo qofka in iimaanka lagu tarbiyeeyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xiro oo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi dadka uu ku tarbiyeyn jiray tarbiya iimaaniya in horta qofka ilaahay lagu xiro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xiro tarbiya akhlaaqiya jira oo qofka dhaqan ahaan in loo tarbiyeeyo waxaan waa wax xun waxaan waa wax wanaagsan waxaan lagu ma ogola waxaan maxaan ku dhahay diinteena ma ogola waxaan diinteena waa ogosha waa tarbiya akhlaaqiya waxaan waa cay lama ogola waxaan waa wanaag hadalka wanaagsan ku hadal soo jeedin tarbiya aqliya jirta oo aqliga qofka in laga tarbiyeeyo u baahan oo wax walba aqligiisa kordhinaya oo wanaaga lagu tarbiyeeyo innagu kaliya waxaanu naqaanaa tarbiya jisadiya wax leeyahay jirka kaliya nu tarbiyeyna cuntaynu siinaa waa cayilina waa barwaaqaysiina laakiin kuwii kale tarbiya iimaaniya waa ka maqan tahay tarbiya akhlaaqiya waa ka maqan tahay waxyaala tarbiya fikriya ama tarbiya aqliya ama tarbiya nafsiya ina waxaas dhan aan ka tagno oo qofka naftiisa kaliya oo yaraan waxa laga yaabaa afkaar hadaama baa jira afkaar marakan xilliga ugu jirana waa xilli adag oo ummadda muslimiinta ay ku jiraan qofku marka waxa rabaa intuu dib u eego
xilliga lagu jiro tarbiyadu muhiim bay noqonaysaa in ardada lagu tarbiyeeyo oo xalaqaadka cilmiga sharciga la baro waxaan bogaadinayaa runtii masaajidka Axmed bin Hanbal oo hadda mar walbana manbac cilmi ahaa meel cilmiga laga barto mar walba ahaa haddana inuu daa'irta inoo soo wada saaro waxaan markaa rajaynayaa insha Allah ta'ala inta ma galabta ka faa'iideysto xafladda u fadhida mooyaane inta kale xaafadaha inay ka dhageysanaysaa iyaguna inay ka faa'iideystaan waxaan rajaynaynaa degmadeennu iyo maamulka degmadeennu inay noqdaan kuwa ka shaqeeya diinta iyo cibaadada oo masaajidada iyo quraan barashadu ay noqdaan muhiimadda koowaad magaaladeenna waxyaalaha culayska ugu badan ka haysto waa dhanka waxbarashada anigu waxaan ahay dadka ka diiqooda goortaan arko tartanada quraanka garowe inaan meel fiican ka soo gelin Axmed bin Hanbal waxaan darajadiisa siin doonaa markuu tartanka quraanka garowe kaalmo ka soo galo marka taasna waqtigeeda macalinkan fariinta u dirayaa in uu shaqada qabto oo arday xufaada oo quraanka yaqaana oo tartanka ku soo baxa inaan helno garowe waxay noqotay caasimad siyaasadeed laakiin waxaan rabnaa inay noqoto caasimad diineed mid ganacsi mid dhaqan iyo mid waxbarasho inta inaan kulansanno baan rajaynayaa insha Allah ee hooyooyinka oo kaalinta ugu weyn leh runtii waxbarashada aabayaashu wax badan kuma bixiyaan marka iyagana si gaar ah ugu mahad celinayaa hooyo waa mahadsantihiin ilaahay waa mahad leh shaqadan idinka qabtay idinkana qabta inta badan waxbarashada idinka taageera iskuulada iyo waxbarashada anigu waa ka warqabaa cidda ugu badan oo ordaysa oo waxa la dhiga leh oo ilmaha daba socota waa hooyada cidda mudan in mahad celinta koobaad ay yeelatana waa iyaga marka iyagana waa u mahad celinayaa macallimiintana waa u mahad celinayaa kulligiin waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa quraanka iyo diintu inay noo noqdaan muhiimadda koobaad waxbarashada magaaladan inay noqoto mid gaarto heer fiican oo magaalooyinka kale ay tartan la gali karto iyo dunidaba waan ku faraxsanahay Boosaaso inay noqotay magaalada ugu fiicnaa dhanka iskuulada quraanka sidoo kale garowe waxaan rajaynayaa sanadka dambe booska inay soo xiriirsato insha Allah madrasada Axmed bin Hanbal iyo masaajidkan waa xaafadan oo cidlaa oo magaceeda boorweyn la yiraahdo oo guryo teelteelo oo aan aad u badnayn ay ku yaaliin baa waaga waxaan ahaa gudoomiyaha muassasatul minhaaj ee booska hadda Sheekh Maxamuud Saciid joogo ma xaafadana waxbaan inaan deegaan ka niyeysnaa baan masaajidkan ilaahay mahadis la bilaabay waa la dhisay halkaas amsna hal qola oo madrasa baa laga bilaabay oo kaligeed oo meel ka taagan oo ilmuhu halka markuu xabad soo socdo meel xaafadoodan laga arkayo la banaan bay ahayd moogtaa marka ilaahay mahadis maantana waad arkaysaan meeshay marayso waxa ma hadda iska leh ilaahay subhanahu wa ta'ala bacda allah kadib runtii macallimiinta gacanta ku haya oo quraanka dhiga oo xalaqada dhiga oo juhdiga iyo dadaalka bixinaya oo aan runtii maalinna nasan maalmihii kale markay quraanka dhigayaan labadii maalmood oo Jimcada iyo Khamiista inay misna ardadii cilmigii tirada badnaayo ay hadda akhriyeen labada maalmood oo wali waqti kooban ay dhigteen marka insha Allah ta'ala macallimiinta aynu u ducayno Allah barakeeyo waxa iyagana ducaa iyo bogaadin mudan waalidiintii sharafta badnaa oo ma aragtay iyaguna doortay madrasada inay ilmuhu u dhigtaan u sii dooray inay xalaqada jamacada iyo khamiista ka faa'iideystaan ogaada cilmiga iyo khayrka iyo quruxda muuqata ardadu waxay barataa xilliga jamacada iyo khamiista oo dhalinyartu ay meelaha iska ciyaarayaan oo banooniga iyo boorka iyo rafaadka ay ku jiraan marka waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo in xaflada loo qabto in dalxiis la geeyo arrinkaasna inaynu ka wada iska kaashano kulligeen insha Allah ta'ala waalidiinta iyo maaragtay muallimiinta iyo maamulka dhammaan waa u soo jeedinaynaa waxaan leenahay madrasada Axmed bin Hanbal xaafada iska leh waa hanti ay xaafadu leedahay gudoomiyaha xaafaduna waa joogaa in laga faa'iideysto oo ardada xalaqaadka runtii hadda ardada aad arkaysaan waxay kulligood waa ardada dugsiga dhigata weey macallimiintana waxa leenahay iyo maasisada insha Allah Allah in barakeeyo sidaas aad ku hadaan ayaan rajaynaynaa sida macallimku noo sheegay in ay ka soo baxaan ilmo aad wanaagsan meeshatan aad ugu baahnayd macallimiinta iyo maamulayaasha dhowr jeer waxay wareedhay saatana waxay aad baan ugu farxay marka hadaan imid anigu inta badad iska maqan baanahay laakiin marka hadda imid aad baan ugu farxay marka insha Allah Allah idin barakeeyo marti sharafta
ardayda dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd alsalaam aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xalfaddan quruxda badan ee galabta lagu dhiirigelinayo imtixaanka ardayda ugu sarreysay ee xalaqada axmed bin xambal runtii waxba hadalka badin maayo waxaan leeyahay anigu hambalyo runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidkii tacabka soo geliyey iyo macallimiintii juhdiga ku soo bixiyey iyagana waa mahadcelinayaa si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkeen maxamed jamiiqo oo isan la'aantii ay socoteen madrasada tanu oo runtii u soo dhabar adeygay wuu ka hadlo sidii hore oo masaajidka iyo xaafada tan oo cidla ah buu asaasay dhabar adeygiisina isagoo ugu mahadcelinaynaa waxaan jeclahay hal mar maasha Allah ka gudoomiye ahaan anigu waa keenayaa insha Allah wixii jooga xaafada oo caruura waana ku faraxsanahay galabta cilmiga kan khamiista iyo jimcaha meesha kubadda nooga aadi lahaayeen insha Allah waxaanu keenaynaa inay masaajidka noogu bartaaniin diinta iyo kutubada noo furan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.